جاليا يا جيجي قدق حبوب جاليا يا جوي قديري داو جاليا يا جيجي قدق حبوب جاليا يا جمال دول كهويو جاليا يا حنين واكو جوجو جاليا يا جمال دول كهويو جاليا يا حنين واكو جوجو isla markii aan gaadhay garoonka diyaaradaha Hargeysa afaafka hore waxaan ku arkay dadweyne tiro badan oo toban kuwaas oo sita calanka Soomaaliland iyo calanka xisbiga kulmiye oo ah kan ugu da'da weyn xisbiyada ka jira Soomaaliland isla markaana madaxweynaha hore Biixi laga soo doortay doorashadii 2017 dadka ayaa iiga waramaya dareenkooda maanta aniguna iyaga qudhooda wax ka weydiinaya isu soo baxoodan maanta sharaf iyo karaamo haddaad ka garowdo qalad كوبي عارلة تاي شرف يا كرامو وسودوينا موسى بيحي عبدي مدحوينه waxaan ku leenahay dalkaaga iyo dadkaaga ku diyaara ku soo dhaw madaxweyne sharaf iyo karaamo ku hayna soo dhaweynta maanta ma qiyaas karaba shucuurtayda waxaan ku leeyahay sidaan u soo anba baxay waagu sidoo igu bariyay waxaan ku leeyahay waagu halkaas igu bariyay madaxweynihii hore Soomaaliland wuxuu ku suntay yahay qaranka marka maadaama qarankii ku suntay ana qarankii sidaan ugu soo waabar sidaan u soo xidhay bay gadhaba may dhammaan cidindhaha iskuma qaban bas saasaan u soo jeednaa sidii baan ku soo baxnay maadaama qarankii Soomaaliland ba socdaba soo dhaweynaya mudane Muuse Biixi Cabdi Xildiid waxaan leeyahay wadankaagi dalkaagi dadkaagi ku soo dhawo mudane Muuse رفيعتي الحمد لله ما انت والد سودا في ماشيني وحبايب بو قاتل odayana madaxsii oo sarka lagu asfasho magaalada ka tahay marka waxa sheegaysaa wanaagga Soomaaliland si khalad dhaco wala wasaxay inta hadu qaato diyaar dadka soo dhaweeyay ee garoonka diyaaradaha Hargeysa kaga hortagay madaxweynaha hore Muuse Biixi ayaa marka laga yimaado dadweynaha tirada badan ee shacabka rayidka u badan waxa kale oo kamid ahaa odayaasha dhaqanka siyaasiyiin hore gaar ahaan kuwii ka tirsanaa xukuumaddiisii taageerayaasha xisbiga kulmiye iyo xubno xitaa ka tirsan xukuumadan madaxweyne Carro kuwaasi oo ay kamid ahaayeen wasiiro barasaabka gobolka Maroodijeex duqa caasimadda Hargeysa iyo mas'uuliyiin kale oo iyaga qudhoodu qayb ka ahaa soo dhaweynta madaxweynaha hore Biixi ila wareediyo xoggaala oo Seki Media ay heshay ayaa u xaqiijiyay in sidoo kale ammaanka laga sii shaqeeyay tan iyo shalay ilaa xalay iyadoo wasiirka arrimaha gudaha Cabdulla Maxamed Carab Cabdulla Sandere uu door weyn ka ciyaaray sidii xaaladdu aanay u noqon lahayn sidii maalintii hore oo kale isla markaana ciidamada booliisku ay si aadan nabadgelyada u sugayeen oo taliyayaasha salsare ee ciidankaasina ay diyaar ku ahaayeen airportka wadada uu marayay madaxweyne Biixi ilaa agagaarka gurigiisa afaafka hore ee guriga magaalada Hargeysa waxaan ahay taageerayaashii xisbiga kulmiye waxaan in badan u soo codeeyay doorashooyin badan laakiin dowladdan Muuse Biixi Cabdi aad baan taageeri jiray labada midna ku taageeri jiray Muuse Biixi nin go'aan loo ahaa wuxuu bulshada ugu soo bandhigana waxaas sameeyaan uu sameyn jiray oo horumariyo dhaqaale waxa doonta ahaatee Muuse Biixi meel badan ku wanaagsanaa Muuse Biixi waa haliyay qaran Muuse Biixi waa nin dalkii dadka uu soo hangalay marka Muuse Biixi amaantiisa hadeen islaamaanta soo koobi karno Muuse Biixi maanta soo dhaweyntiisa waxa ka soo qayb dadweyne aad u far badan dadweynahaas dumar iyo rag bale caruur iyo cirhayla bale dhalinyaro iyo waaye bale marka aad baan u jecelnahay Muuse